haddaba stepka ku xiga ee step 5 aan idhaahdee waxa weeyaan videogii inaad soo saartid oo aad la wadaagtid asxaabtaada. haddaba qaabka aad u sameynaysid waxa weeyaan halkan stepska kana siyaga ku hagaya oo aad u fudud. kaliya waxaad sameynaysaa next baad odhanaysaa. next markaan idhaahdo qaybtan waxa weeyaan waa inaad videogii ka dhigtid oo aad save garaysid. halkan waxaad ku arkaysaa output description, yani videoga soo saari doontid settingska ama featuresku yeelan doono, yani halkii magaca videoga ayaa halkan ka bedelaysaa. first video aan idhaahno ama waxaan odhanaynaa first videoga iskaga daa. save to halkan waa halkaad ku save garaynaysay. waxaynu ku save garaynaynaa inagu marka waad soo furaysaa meeshaad ku save garaynaysay ayaad dooranaysaa. marka inagu folderkeeni ahaa video 1 ee projectka koobaad ku sameynayn ayaynu dooranayna. okay baan idhi waa yahay. halkan waxaad ku arkaysaa resolutionka. resolutionku waxa weeyaan waa cabirka uu ku soo bixi doono videogaagu. imika haddaad eegtid waxaa ku jira cabiro kala duwan, laakiinse haddii aad doonaysid inaad soo gelisid youtube-ka, facebook-ka ama tusaale ahaan yani adu HD inuu ahaado waxaad dooran kartaa 1280 ayaa kaasa dooranaysaa settingskaas. halkan wuxuu kugu sheegayaa size-ka uu noqon doono videogaagu waa 23 MB. wuxuu soconayaana waa 46 seconds buu soconaya. waa video aad u kooban, laakiin marka size-ku wuxuu ku xidhan yahay hadba videoyada iyo sawiranta aad soo gelisid inta ay leeyihiin. hadday badan yihiin waa uu weynaanaya size-ka videoga. halkan waxaad arkaysaa formatkii ama MP4 baad ka dhigaysaa videoga AVI, FLV, MOV, WMV. marka sida caanka labadana ugu fiican MP4-keena marka aynu ku daynaynaa oo aynu ka dhignaa videogeena. haddaad doonto tusaale ahaan haddaad isticmaalaysid iPhone ama Apple waxaad sameyn kartaa iPhone ahaan baad save karaysaa. markaas haddaad videoga caadiga ugu hubiyeysid iPhone-kaaga waxaa laga yaabaa inaan kugu shaqeyn hadduu MP4 aad kasoo. laakiin device-ka haddaad iPhone ahaan aad u save garaysid waxaa laga yaabaa inuu kugu shaqeeyo. halkan waxaad sidoo kale YouTube-ka toos u gelin kartaaba oo email-kaaga aad gelinaysaa. next password-kaaga deetana toos buu gelinayaa. halkan Facebook aad isagana kasoo gelin kartaa oo qaab waxaad gelinaysaa email-kaagii iyo password-kaagii deetana waad share garaynaysaa. halkan Vimeo oo ah kamid ah nooc la mid ah YouTube-ka oo la soo geliyo videoyada ayaa isagana aad halkan ka login garan kartaa. markaas intaas oo qaab waad ku sameyn kartaa videogaaga. balse inagu waxaynu doonaynaa video caadi ah computerkeena ku save garaysano. marka waxaan dooranaynaa formatka MP4 tan waxaan odhanayaa export. marka xoogaha buu wadayaa waan iska yar sugaynaa inta uu ka dhammaynayo. waayahay waad arkaysaa imika waa uu dhameeyey. kadib haddaba halkan waxaa ku qoran find target. targetka yani waxa weye halkii aan ku save gareeyey igee weye. markaan taabto wuxuu iisoo saarayaa folderkii uu iigu save gareeyey videoga. halkan waxaad ku arkaysaa first video waa videogii ugu horreeyay magacaynu sameynay waa MP4 file waa 24 MB. haddaynu ku dhufano لا يزال الخير حيا لا يزال في إمام الجمال. waad arkaysaa runtii waa aad buu qurux badan yahay. simply aad buu u fudud yahay qaybtani. marka waxaynu soo qaadanay marka ugu horeysa waxaad soo gelinaysaa media iyo faylashii aad isticmaalaysay videoyadii sawiraantii. kadib waxaad doonaysaa theme-ka doonaysa theme-ku naxweeyo waxaan quruxda ku daraya videoga iyo sawiraanta. dabeetana waxaad soo gelinaysaa codkii aad doonaysay waad eegaysaa brief garanaysaa titleladii ugu horreeyay kii ugu dambeeyay gelinaysaa. asxaabtaada ayaad la wadaagaysaa. intaynu cashar kan lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa salaanta islaam. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.